wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maanta shir jiraayad oo uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu uga hadlay arinta la xiriirta xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in looyarada u qaabilsan Soomaaliya ay sheegeen in warqada dokumentiga ee ku saabsan dacwadaasi ay maxkamadda u gudbinayaan 13 bishan oo ku beegan Isniinta in soo aadan. sidoo kalena dawladda Kenya ay haysato waqti dhan 8 bilood oo ay ku soo diyaarinayso warqada jawaab celinta kadibna ay bilaabanayso maxkamadda sanadka 2016 bisha Maaj. waxa warbixin laga dhageystay laba looyar oo inoo qaabilsan Soomaaliyeed laba looyar oo Soomaaliya oo inoo qaabilsan dacwadda ku saabsan xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya oo aad ogtiin muddaaba in marar badan oo horena la isku dayay in si wada xaajooda lagu dhameeyo laakiin ay suroobi weysay markii dambena dawladda Soomaaliyeed go'aamisay maadaama ay xadgudub oo ku soo samaysay Kenya badda Soomaaliya xuduud badeedka Soomaaliya in markii lagu qancin kari waayay in ay xuduudoodii asalka ahaa ama sharcigu qabo ay ku ekaadaan dawladda Soomaaliyeed waxay gudbisay dacwad heegu gudbisay dacwadaas 13 July Isniinta soo socota ayaan inagu dokumentigeena gudbinaynaa dacwadda aan maxkamadda horgeynayna sida ay looyarintu noo sheegeen marka Kenya waxay xaq u leedahay inay muddo 8 bilood ay iyaduna soo diyaarsato jawaabteedii marka kadibna fadhigi baa bilaabanaya waqti ku beegan March 2016 waqti ku beegan ayay dacwadaasi fadhigeedu bilaaban doonaa laakiin inagu dokumentigeeni oo ka kooban 150 page oo ay qoreen looyar caalami ah iyo looyar Soomaaliyeed isku jira waxa la gudbinayaa Isniinta soo socota. wasiirka ayaa rajo ka muujiyay in lagu guuleysan doono dacwadaasi ku saabsan arinta badda. looyaradu waxay noo sheegeen in 99% dacwadeenu ay haysato xubin rasmi ah oo ay marka laga fiiriyo sharciyada caalamiga iyo dhammaan dacwadihii maxkamadaasi qaaday dariiqii ay martay in dariiqa aynu inagu ku taaganahay 99% uu yahay awalna xaq Soomaaliyeed ay ahayd meesha marka arintaasaanu dhageysanay dabcan maantana waxa laga yaabaa looyaradu inay warbixin kooban siiyaan guddoonka baarlamaanka iyo guddiga joogtada ah ee baarlamaanka madaxweynaha hore ay u soo siiyeen marka taas marka xukuumaddu waxay go'aamisay oo si unanimous 25 wasaaradood ugu codeeyeen in dacwadaas la gudbiyo wax hiil iyo hoona la garab istaago aan lagala harin waxa la wixii loobina support dhaqaale xoog leh u baahan tahay laakiin aan waxba loo